kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada warka Somali News 724 qodobada aad ku daawan doontaana waxa ay kala yihiin 10 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo maanta maxkamad la soo taagay madaxweyne Waare oo magacaabay wasiir cusub hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo sheegtay in dalka Koonfur Afrika uu ku socdo wadadii Mareykanka iyo Yurub ee COVID-19 mucaaradka Yemen oo shaaciyay wada hadallo ay la galaan xulufada Sacuudiga iyo dibadbaxyaal rabshado wata ee ka socda dalka Lebanon oo sii xoogeystay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa channelkan Somali News 724 ku daawan doontaan fadlan haddii ay tahay daawade markii kugu horeysay aad soo booqato channelkani hanaga hilmaamin inaad saarto subscribe gambaleelka furo oo like saaro share gare asxaabtaadana la wadaag mar kale iyo warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay 10 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo maanta maxkamad la soo taagay dhageysiga dacwad 10 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ay ku eedeysan musuqmaasuq ay ka socdaan maxkamadda gobolka Banaadir dadkani ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha waaxidyo ka tirsan wasaaradda iyo agaasimaha guud oo dhawaan xabsiga laga sii daayay waxaa loo haystaa eedeymo ku saabsan lunsashada hantida dadweynaha gaar ahaan markii uu bilowga ahaa cudurka halista ah ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka ayaa bilihii la soo dhaafay wajahaysay jahwareer ka dhashay xiritaanka shaqaalaha iyo sidoo kale agaasimaha guud xilli xaaladda adag uu dalka uu ka jiray dhanka kalena madaxweyne Waare oo magacaabay wasiir cusub madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilalkii ka qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga mudane Geele Isaaq iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee Hirshabelle mudane Luqmaan Xaaji Baarqad Waare ayaa sidoo kale magacaabay bedelka labada ruux ee xilka laga qaaday wasiir ku-xigeenka amniga ayaa loo magacaabay mudane Xasan Maxamed Cilmi waxaana sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda loo magacaabay mudane Yuusuf Sheekh Xasan Macalin wasiir ku-xigeenka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Geele Isaaq warsame ayaa shalay ku dhawaaqay in uu iska casilay xilka wasiir ku-xigeenka amniga ee maamulkaasi shir jiraa'id uu warbaahinta maanta ugu qabtay Beledweyne ayaa lagu sheegay in ay timid kadib markii taliyaha booliska gobolka uu joojiyay banaanbax lagu taageerayay dowladda Soomaaliya uu wasiir ku-xigeenka qayb ka ahaa dhanka kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo sheegtay in dalka Koonfur Afrika uu ku socdo wadadii Mareykanka iyo Yurub ee COVID-19 Koonfur Afrika waxa ay diiwaan gelisay kororkeedii ugu badnaa ee maalin kaliya ee kiisas COVID-19 ah iyadoo laga diiwaan geliyay 3359 xaaladood oo shalay kaliya warbixintan cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in Koonfur Afrika ay hadda diiwaan gelisay in ka badan 61,9270 xaaladood ama in ka badan rubuc kiisas guud ahaan qaaradda Afrika oo ay ku jiraan 1354 dhimasho ah ku dhawaad 3 meelood 2 meel kiisas Koonfur Afrika waxa ay ku sugan yihiin gobolka galbeedka Kaba oo xudun u ah magaalada Cape Town madaxa ururka caafimaadka adduunka ee Afrika ayaa sheegay in dalka Koonfur Afrika uu ku socdo wadadii ay mareen Yurub iyo Mareykanka isla markaana loo baahan yahay in gurmad degdeg ah in ka badan 7.6 milyan oo qof ayaa hadda la xaqiijiyay in ay qabaan cudurka loo yaqaan COVID-19 ugu yaraan 424,000 ay u dhimatay sida laga soo xigtay xogta jaamacadaha John Hopkins dhanka kalena mucaaradka Yemen oo shaaciyay wada hadallo ay la galaan xulufada Sacuudiga sarkaal sare oo ka tirsan falaagada Yemen ayaa waraysi u siiyay BBC-da waxa uu ku sheegay in ay diyaar u yihiin wada hadallo toos ah oo ay la galayaan xulufada Sacuudiga si loo afjaro dagaalka 5 sano ee ka socda dalkaasi waxaan diyaar u nahay wada hadallo aan la galno wadamada dagaalka kula jira si loo afjaro dagaalka ka socda Yemen 5 sano ayuu yiri Maxamed Cali Al-Xuud oo xubin sare ka ah isla markaana ka tirsan falaagada Yemen ka dagaalamaysa
waxa uu sheegay in ay xiriir la sameeyeen qaar ka mid ah wadamada dagaalamayaan laakiin ma uusan shaacin wadan ka mid ah wadamadaasi. Dagaalkan ayaa kasii daray sanadkii 2015 markaasuu Sacuudiga iyo wadamo kale ay duulaan ku qaadeen dalkaasi ku yaala gacanka Carbeed si loo soo celiyo dowladda sharciga ah ee hadda fadhida Cadan. ugu dambeyntiina dibadbaxyaal rabshado wata ee ka socda dalka Lubnaan oo sii xoogeystay. boqolaal ruux kale oo careysan ayaa dibadbaxyo rabshado wata ka dhigaya dhowr magaalo oo ku yaala dalka Lubnaan, ayadoona ay dibadbaxyadu ay sii xoogeysanayaan. dadkani careysan ayaa ka cabanaya dhaqaale xumo dalkaasi la degtay sanadihii dambe. qiimaha lacagta Lubnaan ayaa hoos u dhacday 70% tan iyo markii dalkaasi uu dibadbaxyadu ay ka bilowdeen 4 bilood ka ah. wasaaradda arrimaha gudaha Lubnaan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay magaalada caasimadda ah ee Beirut iyo magaalada kale ee Tripoli la yiraahdo. magaalooyinkani xalay ilaa iyo saakee dibadbaxyadii ugu xoogana ayaa ka dhacay, waxaana dadku dhagax tuurayeen ciidamada ammaanka. sawirro iyo muuqaallo warbaahinta qaar ay baahisay waxaa ka muuqday xarumo ganacsi oo la gubay iyo qaar kale oo la boobay. guud ahaan warkii aad ka dhageysanayseen Somali News 724 wanaaggeynta. fadlan haddii aad tahay daawada markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkani, subscribe saar, like garee oo gambaleelkana furo. nabadgelyo.